mudaharaadkani oo gilgilay magaalada Gabiley ayaa inta la og yahay hal qof ku dhintay afar kalena dhaawac ayaa ka soo gaadhay. mudaharaadkani ayaa ka dhashay kadib markii askari ka tirsan ciidanka militarigu qudha ka jaray laba sarkaal oo deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka Gabiley ee Somaliland. dadweynahani gobolka Gabiley ayaan u kala hadhin yar iyo weyn mudaharaadkaasi waxaanay dadweynahani gabi ahaan baxideen wadooyinka waaweyn ee dhexmara magaalada Gabiley. dadweynahani oo wajiyadooda laga dheehanayay cadho xooggan. ciidamada kala gadisan ee Somaliland oo intii mudaharaadkani socday ku qulqulayay magaalada Gabiley ayaa tahli kari waayay inay si nabad ah ku kala kaxeeyaan dadweynahaasi, balse goor dambe xabad nool ku kala kaxeeyay, waxayna taasi keentay inay magaalada Gabiley saacado badan weheshato saqadha rasaasta oo talantaaliya. dadweynahani mudaharaadaya ayaa si adag fariin ugu diray madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo, waxaana yidhaaheen walaalkay maxamed yuusuf oo gacan ka xaq daray dishay waxaana lagu diray direyskii qaranka isagoo qarankiisa u dagaalamaya uu dhiman laaniga maanta aan ugu farxilay, laakiin maanta qacantii qaranka direyskii qaranka lagu diray. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. geerida tiiraayadana maanta reer Gabiley gaar ahaan ugu dhacday, cid kale kuma dhacay, Somaliland kuma dhacay, cid kale kuma dhacay. Gabiley iyo awdal bay ku dhacday geeridaas, waxaana ka dambeeyay madaxtooyada si loo laayo haldoorka galbeedka ayaa loogu talagalay hawshan. anna waxaan leenahay haldoor baa loogu aaray wallaahi oo bilaahi madaxweyne waxa ku sheegaya marka hore ma lahayd, laakiin maanta ma tihid waxa tahay wuu soo baxay, macnaheedu waa la fahmay, danaystaad noqotay. yaa Gabiley maanta way ka soo horjeedaan, waxa tahayna ma jirto. waxaan u sheegayaa dawladda Somaliland Siiraanyo sida noogu hostay islaamku ugu lisay noogu madxanbayn. waxaan maanta u sheegayaa 3 cisho gudahood haday sharci soo taagi waayaan, ma 3 cisho gudahood haday u soo taagi waayaan anagu wixii ka dhaca kuma jirno. yaro adhi jiray inuu halyeeyadayada afka ka toogto oo yiraahdo waa sakaarayga ma duwana. taas maanta waxay cadaynaysaa wax baadiga haray inay soo wada jeesteen reer Gabileyna ay noqdeen inaan dabka lagu shidi karin qarannimada iyo dadkana waxa lagu ilaaliyaa Gabiley. dadka tiiraayaysanay falkii foosha xumaa ee ka dhacay caqabadaha maanta taagan waxa weeye inanka iyagu haddii uu ku dhintay maanta qabiil hadduu qaranka u dhinto maanta ceeb maana qabneen, laakiin maanta waxa uu ku dhintay qabiil. waxaanu diidanahay oo aanu diidanahay shaqoolka laga shaqeeyay ee la soo abaabulay. si kastaba ha ahaatee waxaa xusid mudan in madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo aanu haba yaraatee ka hadal dilkani labada sarkaal, lamana garanayo sababta madaxweynaha Somaliland uga muquurtay amuurtani aadka u culus. Bedri Goosaar Maxamuud, telefishinka caalamiga Star.